ay ahayn dad iyo ummad la isku haysto ay yihiin dawlad iyo dad jecel Soomaalinimada jecel ay yihiin Soomaalinimada maxaa keenaya inay saa degdeg u noqoto wax kasta isu tanaasulaad sameeyaan dhibaato imaanay ka dhicin inay si yar ku soo gabagabowdo inay dawladda inta la ekimaanta haddii dadka Soomaaliya wax garanayaan inay halka ka dhigtaan caasimad dadkana tirada u dhiibtaan way dadka Soomaalinimo ka muuqata dadka horumar baa ka noqda dadka isku tanaasul aan Soomaali lagu aqoon baa ka muuqda dadka halka digin aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya xildhibaanadooda iyo iyagaba waxaan u sheegayaa markaan waxaan la hadlayaa dadka reer waqooyi bari waa laga soo gudbayaa xilliga campaign-ka isqabsi baa imanaya istiyaacadeen baa imanaysa aflagaadooyin baa imanaya dad iska hadli doona imanaya dad waxay rabaan sameeyaa oo iman doona dad qayliyaa iman doona waxaas waa campaign-ka waa lagu jiro waa doorashada dhasha waxa laakiin marka dambe maxay noqonaysaa hal mid bayn ka midaysanahay calankeena iyo dhulkeena iyo nabadeena imaynaan cidna kala gorgortamin cidna ku soo saqajaamin karin laakiin ninkii campaign sameynaya inuu sameeyo laakiin dadka imaanu soo faragelin nabadooda dhulkooda iyo calankooda in dadkani dad badan u dhinteen haddana diyaar u yihiin inay u dhintaan ayay qeexaysaa marka intuu campaign ku socdo intay doorashadu socoto waxyaalo badan baad maqlaysaa reero badan oo iska waxa weeye mudaharaad galad baad arkaysaa qaar iska cararayaad arkaysaa qaar guuri doonaad arkaysaa waxaa dheg yaan jalag loo siin waxa leh doorashadu waa very xasaasi weey marka ayaan leena ula soo dhicin markasta way meena eegnaa midnimadeena way maan ilaalinaa nabadeena way meenu aynaan marra dhaafin waayo waxana waa maalmo nin baa raba madaxweyne uu koro waa kala fikrad weyneenna reer waqooyi bari nin waa taageeraya halkan uu taageeraya nin madaxweyne kale uu wataa nin qabiil buu ku wataa nin aqoon buu ku wataa nin markuu arko sideedo kale nin wuxuu noqonayaa open minded maskaxdu u furan tahay oo marka eegaya xaaladda ay ku jirto waqooyi bari oo marka u choose gareyn kara ama la soo bixi kara nin marka xaaladda maanta joogto ku fiican sida anigoo kala nin adeerkiisa in adeerkay haddaanu qabsan wallahi waa lagu kala tegayaa in adeerkay haddaanu qabsan wallahi saasaa la yeelayaa mid wuxuu oranayaa tollaayey hebel baweeg oo jeclaan uu jecel yahay waxa weeye ninkanaa fiican oo maxaad ku micnaanaysaa waa nin fiican waabuu 100 ii soo tuuray waabuu 20 ii soo tuuray waa nin gacan furan waxyaalahaas ka sheekeynaya laakiin dawladnimadii yaa qaban kara maskaxdu ma fadhido dadka marka dadyo badan baa la arkayaa marka waa in liistijiya xaaladda nabadana waa in si kasi fiican loo sii qadariya waxaan u sheegayaa baarlamaanka cusub wiilal dhalinyaraatiin gabdho dhalinyaraatiin dhalinyarada u badantiin ha fududaanina hadalka aad leedihiin way muhiim yahay qiyaas sidii hore ha u sheekaynina mikrofon baa afka idin ka soo gelinaya waxba la hadlaya waxaad tihiin dad xasaanad leh ummad iyo dad baad matashaan ummadda iyo dadka aad matashaan way hadalkiinu miisaan leeyahay laakiin waa la iska aflagaadooda maaha waa la iska caytamaa maaha wixii la rabaa la sheegaa maaha saanaa dhacday dadka waa isku diraysaa yaan la isku dirin dadka intaad ka soo baxdid golaha imaa tiraad maanta waa la isku haystaa golihii waa la isku dilay golihii maanta waxa la sameeyey waxaasoo dhan xasaanad baad leedahay luqadaada waymaad miisaantaa aqoontaada aad dadka tustaa had iyo jeerna aad ka fikirtaa nabadda iyo horumarka laakiin wixii meesha laga yiraahdaba ha soo qaadina warbaahintuna markay mikrofon afkeeni ka soo geliso waymay wixiinu sax yihiin waxaad ka doodaysaan aad garanaysaan waayo shacab iyo ummad ayaad matashaan warma maqlaana mise maqlamayno wiilashiina yar iyo gabdhiina xasaanad baa leedahay micneedu maaha waxa rabti ku hadal waxa rabti iska sheeg iska dadaaran maanta waxaan arkayaa kuwo arrimo xasaasiya ka hadlay haddana saan noqon eeg markaad meesha ka doodaysaan meesha dhexdeeda ka dooda dood baa laynin soo dhex dhigayaa ka dooda dadkana danahooda eega ha eegina tiina reer ahaaneed laaluush lagu siiya ha eegin laakiin eeg danta iyo dalka iyo dadka ku jiro eeg dad baad matalaysaa maaha imaad meesha iska timi jaanis baad heshay haddaan anigu waayo adigu aad heshay dadka waymaad ugu shaqaysaa saaxiib may fahmayna mise isfahmayno ma isla dhacna mise islama dhicin anigu waxaan la hadlayaa xildhibaanada cusub aan experience ama khibrad ku filan aan haysan
oo reer iska soo yara doorteen ilmaadeer baatiin maabti baatiin lagu soo doortay ama kana maanta ku bahalkeen lagu soo doortay waxaan leeyahay dawladana u sheegaya training in dadkan khibradda looga faa'iideeyo oo aan meesha lagu soo turin kaliya training la siiyo sida sharciga loo sameeyo sida sharcigu yahay waxay oran karaan waxaanay oran karaynin xasaanad baan haystaa waxaan rabaan ku hadlayaa nabadda wax yeelaysaa marka nabadda haddaad wax yeelina sharci baa ku qabanaya way afkaagaas dad isku diri karaa dad buu wax yeeli karaa ila nin xildhibaana tahay nin xasaanad leh baa tahay nin hadalkiisa afkiisa ka soo baxan maanta haddaan maanta iska sheekeynayo waa yaasiin baa lagu leeyahay oo xasaanad miliya anigu waxaan rabaa iska sheegi karaa laakiin haddaan xildhibaan noqdo oo dad matalo afkayga iyo luqadayda waa ilaalinayaa waayo ummadan baa madaxa isu gelin kartaa ummadan baa wareerin kartaa marka ummadda had iyo jeer xogtooda u xafida nabadooda ilaaliya sharcigooda ilaaliya wixii ku soo xadgudba tusa haddaba waxay noo soo socda guddoomiyihii oo niyo naga daaya reer hebel aan doorano iyo reer hebel aan doorano nin meesha u qalma oo ka saari kara marxaladda marka meesha jirtid weedarka markii aad fiirinaysid marba dhar baa xidhanaysa marka kulul tahay garan baan xidhanayaa markay waxa weeye jacket baan xidhanayaa xilligan north east ama waqooyi bari xaaladda ay ku jirto yaa ka saari kara baa loo baahaya yaa maanta halkan ay joogto ka qaadi kara loo baahaya laakiin uma baahnin reer hebel hadduu saa ahaan lahaa reer hebel waa ka gudubnay waa soo dhaafnay waxbaynu kala baxkaysanay dawlad baynu samaysanay reer hebel iyo qabiil hebel meel odayaal meel jooga oo marba shir jaraa'id qabanaya waynu ka dalacnay waxaas waxaynu samaysanay sharci ina kala haga waxaynu samaysanay dawlad ina kala hagta wadooyinka waad kala taqaanaa nin walba meeshu marayo halku ka gudbaayo gawaaridu nin walba leyn buu leeyahay leynkiina ima qabsataan marka maanta waxaynu u baahannahay madaxweyne ka saari kara xaaladda ay maanta ku jirto ayaynu u baahannahay aqoonteeda leh kartideeda leh maanta maxaynu ku jirnaa baa imanaysa maanta xaaladda siday tahay baa imanaysa iman waxyaalo badan is weydiino wey imaynaan keliya ku hadhin waxa weeye kan waa inaadeerkay kan waa inaabtigay waxa weeye maanta waxaa leh heblaa leh maanta waxaa leh faarax garaad baa leh maanta waxaa leh jaamac siyaad maynu siino maanta waxaa leh warsangeli maynu siino maanta waxaa leh oo maynu hebla siino waxaas ma jiraan waxaas waa waxa dawladda laga samaystay wey waa waxa xildhibaanada loo doortay wey waa waxa dadka codkooda maanta xildhibaanada idinka haya maanta intay qofku anigu maanta madaxweynahan rabo ma soo saari karo laakiin adigu waa soo saari kartaa waayo anaadii matashaa dadka ka qaata dadka dhageysta laalushku yaana inii caddaan lacagtaa qaadanaysaa yaana inii caddaan hebel baa xoogaa haya yaana inii caddaan dadka iyo dalka waa imaad u naxdaan dhulkana aad u naxdaan oo u soo saartaan qof u qalma oo 5 sano joogi doonaaye 5 sano aan layna habaarin inkaarin ku dhacdo waxay noo soo saaran muxuu ahaa yaan la oran dadka u soo saara wixii wax qabanaya maanta waxyaalaha aad ka doodaysaa joojiya hebel ma qabanaya wixii warsangeli baa xildhibaanimada hayay gudoomiyaha Puntland ma shaacin laakiin automatically waa ku dhigtay mid baa madaxweynaha iyo automatically uu iska qaatay mid baa madaxweyne ku xigeen hayo iskaga dhigtay ka daay dadku waxa ku shan badanaysa anigu waxaan wataa oo aan raacsanahay oo aaminsanahay xilligan inuu ka saari karo Cabdirashiid gudoomiyihii experience uu leeyahay wuxuu leeyahay waa ninka maanta keenay haddaan rabo anigu tayda haddaan ka hadlo waayo qof kastaba wuxuu leeyahay choicekiisa anigu dayni kuma khasbayo laakiin waxaan inii sheegayaa markii aan fikiray oo aan eegay talada gudoomiyihii hore ee Puntland ahna hadda musharax madaxweyne oo ah dawlad goboleedka waqooyi bari waa Cabdirashiid waa gudoomiye waa khibrad buu leeyahay waa ninka maanta keenay intaasoo qof ka keenay reer maakhir keenay oo intuu soo jiiray dadkii diidanaa
كسو هرشيدي لغو أخري ورسنجل يودر بهانت مشري كرام وحما ولا قبسان كرام وانك انتو سوي عي أرجع سودي دي انك دتك سودي ديو أوكي ناي ماشي كاني و you know ما يلينو أي نمان كلا يلا غير خاتمه وحوا ولا قبسان كرنا وانك يدي وانك انت سكون أو قف لاس عنو سوق هنا أو غير ما خرا وكان كرا واحد كبدان مركو مدحوينه نقطة وحدو مدحوينه كحيجين نقطة وكين كرا خاصة ما هاي موقفكم مدحوينه نقطة مدحوينه تشويس كيس إسكال أنا ما أنت غير ما آخر نولو حربو عرّ كرا كي ما مدحوينه روا هو عرّ كي قدومي روا هو عرّ ما خاصة ما ترادي هبل بو عرّ رايه أدو محدو عرّ رئيسه هبل بو عرّ رايه كاسي هبل ما عرّ كرو قف كسي بتشويس كيس سياسات إسقاله مركا أنا تيم كاسان وتا تيم فردية يا عبد الرشيد بموتا دجالاي مقال تيم لا يرادوي دجالاي دتك دجال حتى والله الله كوخداس دتك دجاو دمك يا والله الله دجالاي wax maqal may maqashim say ma maqal may maqashim say ma maqalin dagalaay wax maqal dadka dhigaala xitaa wala hadla marka meesha markii aan arkay oo aan soo fiiriyay Abdirashiid Yusuf Jibriil baa ka bixi kara muxuu uga bixi karaa wadankan waa wadan dib u dhac weeye waa wadan maanta u baahan hab military iyo hal dhiranaan u baahan aan u baahnayn kanaan habaa iyo kanaan doonaya iyo kanaa xiga iyo kan maxaa loo siin waayay iyo hebel maxaa loo siin waayay waa imaad la timaada waxaad hebel ku rabtid way ma la timaada wadulkan gobolka Sanaaga ama gobolkan aynu maakhir leenahay nimankan dhulbaanto way iska qasabnay marubaan ii sheegnaa sabeen maxaynu haysanay iskala tagnayno nimanka waa wala dhulbaantay degmaynu xitaa hadda ku noqono ma lihin dhulkan in la xoreeyo u baahaya gobolka Sanaaga imaynu degmooyin iyo gobol helaynu u baahana 50-50 iska nirin maxaynu haysanay waxa rabtaa noo sheegina nimayo saaqnimada niga daay beenta niga daay sidoo kale fadhiyana waa inuu gobolka Sool oo ku soo celiya hab dawladnimo war haday maqlam say maqlina isna khibrad buu leeyahay shanta sano waa in loo daayaa dhulka inuu ku soo noqdo gacanta waqooyi bari وهدي له ربو أنا أقول ديارات إيو تاي إيو بورسوير لقاطة إيو وشنطة دم بصوص عتوي شنطة معها شنطة ما فيرج